iyo dawlad ahaan midnaba dawladda Itoobiya iyo waliba khaasatan Oromada waxaan ugu baaqaynaa dad baa jooga wadanka Soomaalida ku dhashay ku dhaqmay wiil ilaa 3 awow 4 awow nabad bay ku joogaan waxaan ugu baaqaynaa ixtiraamkan anagu dadkooda ixtiraamno kale inay dadka naga ixtiraamaan aniga waxaan ku dhashay gobolka la yiraahdo Sanweyne khaasatan markii la sii kala qaado degmada Haraqile la yiraahdo ninkii garanaya aan ku dhashay dadkaas xoolahoodii waa la dhameeyay maacuntii baa la laayay wax magaratadii baa la laayay birmagadeydii baa la laayay dawga bini'aadamka dad aan la dilin baa jira oo cambaaraynayno aad iyo aad u cambaaraynayno haweenka lama dilo ilmaha saqiirka lama dilo dadka aan qaan gaarin lama dilo waxaan ugu baaqaynaa dadka Oromada ah sida nasab xumada ay dadka oo la dhaqmayaan inay dhaafaan dadku waa dad islaam waa dad walaalo ah waa dad isdhalay waa dad isku deegaan waa dad isku diina waa dad isku dal ah siyaasadaha dadka ka danlana inay iska fahmaan dan ugu ma jirto qolada kala disho waxaan ugu baaqaynaa aad mar labaad iyo mar saddexaad boo cambaaranaynaa falka foosha xun ee wadanka ka dhacay aan raalli ka ahayn annagoo beesha jidle gugundhaba ah Soomaalida wadanka jirtana dhibka lagu hayo kulli khaas ahaanba kor iyo hoosba ka xun oo aan raalli ka ahayn aan baaq ugu jeedinaynaa waxa kale oo sheegaynaa waxa la yiraahdaa reerka badan hadii laga ooyo reerka yar waa laga ooyaa dhaqanka xun ee wada Oromadu haday deyn weydo wadanka Soomaaliyeed meel kasta Oromadu way ku dhaqan tahay way joogtaa waan isnaqaanaa sida saqajaanka uma dhaqmayno hadayse sii wadan saqajaanka oo kala wadanka meel kasta ka bilaabmaya waxaanu leenahay dadka Oromada oo dadka sida xun oo nasab la'aanta oo la dhaqmaya dadka nasabnimaan xumaanta inay joojiyaan aan aad iyo aad ugu humleynina mar labaad waxaan ku hadlayaa afka Oromada ninkii yaqaan ha dhageysto aan ku taabaleetin dhaladhay kaysa ana saweynatin dhaladhay waxaan Oromo akan jood namni Oromo biyatana nijirtan dubartiintaysan asdirti dhiirtitaysan asdirti aka kaysaniti heefa fi joole dubartiin gan aka kaysaniti walaala lol aanjiru aka kaysaniti mataafi maadhi aanun waxaan idin sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida qashinkoodu dhaqanteen inay bini'aadamkooda dhaqmo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh